Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa gobolka Nugaal ku soo gabagabaysay tababar loo furay in ka badan 500 oo askari oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, kuwaas oo looga soo ururiyey qaybo ka mid ah deegaanada Puntland. Wararka laga helayo gobolka Nugaal ayaa sheegaya in tababarkani uu ka socdo duleedka deegaanka Eyle, iyadoo la sheegay in ciidamada la tababaraya aysan hoos tegin maamulka Puntland ee uu hogaamiyo Madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni. Mas'uuliyiin ku lug leh ururinta iyo tababarinta ciidamada ayaa sheegay in hawshan ay qayb ka yihiin xildhibaano iyo siyaasiyiin ka soo jeeda Puntland, kuwaas oo dhaliilsan siyaasadda maamulka Puntland. Waxaa sidoo kale la sheegay in beelo ka kala tirsan gobollada Nugaal, Mudug iyo Bari ay taageero u muujiyeen dadaallada lagu ururinayo ciidamadan. Dhaqdhaqaaqyadan siyaasadeed iyo kuwo amni ayaa ku soo beegmaya xilli uu jiro muran siyaasadeed oo u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Puntland. Siyaasiyiinta taageersan dowladda federaalka ayaa lagu warramay inay dhiirigelinayaan dadaallada socda, halka maamulka Puntland uu muujiyey walaac ku aadan saameynta arrintan ay ku yeelan karto xasiloonida deegaanada Puntland. Dhanka kale, madaxweyne ku-xigeenka Puntland Ilyas Lugatoria ayaa dhowaan ugu baaqay siyaasiyiinta mucaaradka ah inay ka fogaadaan tallaabo kasta oo uu sheegay inay dhaawici karto midnimada iyo jiritaanka Puntland. Arrintan ayaa imaanaysa iyadoo weli uu taagan yahay khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka Puntland, kaasoo saameyn ku yeeshay wada shaqayntii iyo mashaariicdii horumarineed ee labada dhinac ka dhexaysay.